محمد حسن ويلي الكعس oo ku safriyay dhul adag oo qaybtood rafi bacaad leh musaafo dheer ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay socod dheer uu ku soo galay baaskiil uu watay kaas oo uga soo mabaxay magaalada Muqdisho ee caasimada dalka kuna soo gaaray magaalada Gaalkacyo 750 kiiloomitir oo ay ku adag tahay gaadiidka qaar inay ku safraan ayaa muddo 3 isbuuc waxa uu ku soo maray 3 gobol isagoo wato baaskiil iyo sahay uu hadba uu ka qaadanayay tuulada uu tago الكعس ayaa sheegay in gabar uu jeclaa uu safarkaas dheer u soo galay si uu la kulmo taas oo ku sugan magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug waxaan soo socday markii ugu horeysa 22 cisho dadweynaha macnaheedu waxa waaye 22 habeen iyo 22 maalmood anigoo waliba safarkayga oo toosan ahayn maadaama aysan wada fiican jirin ogaa meelaha qaar kood nabadgelyada aysan wanaagsanayn marba tuulaan soo seexanayay marba xaafadaan imaanayay marba magaalaan imaanayay mid yar laakiin safarkaygu waxa waaye saddex ujeedo wata aniga dadka waxba ka qarimaayo mid waa socdaal dalxiis iyo dalbarasho mid waa arrimo isboorti oo ah jirdhis waaye muruqa dhis maskaxda dhis midka kalena waa arrimo romance arrimo jacayl waaye gabadhan jeclaa ayaa Gaalkacyo joogtaan oo mid inaan arko shacab badan ayaa ku soo dhaweeyay bartamaha magaalada Gaalkacyo ninkani baaskiilka ku safriyay iyagoona ku amaanay dadaalka adag uu sameeyay ilkaas ayaa TV Universal uga warmay caqabadii uu la kulmay intuu safarka uu ku soo jiray alxamdulillah ani qoys culimo ah oo duceeyay ayaan ka dhashay Allah u naxariiso way abaa dhinteen ducaa iga tageen wallahi hadda iraado waxaan la kulmay aan daal ahayn wax kale ma jiraan intaan soo socday caqabad kama kulmin oo kaliya meelaha qaar kood waxa la weydiinaya damiinna waa nin magaalo ku dhashay aan ahay oo muctarifa damiin cid walba aqaana deegaankiisa loo kala degaan aqaana marka xamar ka soo tagayna waan ogaa in la weydiinayo waan ku soo tashtay alxamdulillah ilaahayna Gaalkacyo waa nabadkeena maanta anigoo caafimaad qaba baaskiilkayga oo san hal bir ka soo jabin taayir iga banjarin ayaan socdaa oo ay jeedaan wallahi horta kulli amniga aadan u amaanaya amni fiican ayuu jiraa haduu amni jirleen aniga maana soo mareen meelaha qaarkood cabsi waa jirtaa laakiin markii hore aan ku soo talgalay oo meelaha qaarkood waa ka xeeladaystay laakiin inta badan dhulku waa nabad waxa jooga dad Soomaali ah oo dadka jecel soo dhaweyn leh intaas magaalo hotel maana seexanin guri aan aqaanay oo hore aan macna u aqaanay kubaana deginin Soomaalnimo ayaa la soo dhaweynayay gawaarida biyo siinayeen geelada caana siinayeen xaafadaha markaan tago hilba la qalaasay dhaqankii hore Soomaalida ayaan soo xasuustay aabay iga sheekay jiray ugu dambeyn ilkaas ayaa sheegay inuu ku faraxsanaa socdaalka uu ku soo gaaray magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug Libin Cajiib Xaashi TV Universal Gaalkacyo